kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadaan idinku talagalnay waa barnaamijkeenii ugu horeeyay barnaamijyada maanta oo sabti aan idiin soo gudbinayn taariikhdu waa 6 bisha 6 sanadka 2026 wararkii ugu dambeeyay soo kordhay tan iyo teenu kala maqnayn ayaynu barnaamijka kusoo qaadanaynaa ugu horeyn barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa aroortii saakay mar kale ayay nagta iska saareen Mareykanka iyo Iiraan haddaba dagaalkaasu muxuu ka bilowday Mareykanku waxay duqeeyeen jasiirad Iiraan ay leedahay oo ay yiraahdeen waxaynu baabi'inay raadaarada halka ugu rakibnaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan iyaduna waxay sheegtay inay nagta ka saartay saldhigyada uu ku leeyahay Kuwait iyo Bahrain haddana dagaalkii wuu joogsaday laakiin faahfaahinno badan markii hore lagama hayn muxuu dagaalka ku qarxay maxaa dhacay sidee wax u dhaceen haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa la sugayay warbixin faahfaahsan sida ay wax ku bilowdeen inay u sharaxaan ka hor intaysa ciidanku hadda dhow soo saareen warka Mareykanka ayaa ka hadlayay haddaba waxaynu hadda haynaa warkii ugu dambeeyay ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay ka soo saareen weerar ka dhacay haddaba wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan waxa ay soo saareen Al Jazeera waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa goor dhow faahfaahin ka bixiyay weerarkii aroortii saakay dhacay waxay sheegeen inuu ka bilowday 4 ka mid ah maraakiibta shidaalka qaada inay isku dayeen inay ka gudbaan marinbiyoodka Hormuz si sharci darro ah macnaha iyagoon soo marin Iiraan inay iska gudbaan ayay doonayeen haddaba waxay tiri ciidanka ilaalada kacaanku waxay sheegeen 4 markab inay isku dayeen halkaa inay ka gudbaan Hormuz waxaana la sheegay inay iska dhagatireen digniino ay u direen ciidamada Iiraan kadibna waxay sheegeen in mid ka mid ah ay Iiraaniyiintu bartilmaameedsadeen kadibna uu halkaa ku joogsaday halka kuwii kalena la sheegay inay dib uga laabteen meeshii ay ka yimaadeen ayay dib ugu laabteen marka Iiraan waxay leedahay dagaalka wuxuu ka bilowday 4 markab oo kuwa shidaalka qaada ah ayay Mareykanku yiraahdeen iska soo gudba war miya meesha ma isbaaraba taale ma iska gudbaya nimankan Iiraaniyiinta waxay ogoleen baa gudbi kara meesha marka waxay yiraahdeen taxdiira u sameeyeen digniino weynaga iska dhaga tireen markabkii ugu horeeyay soo garguuranaya nab lagu yiri meesha ku banjaray kadibna kuwii kala dibay u laabteen meeshay ka soo laabteen ayay ku laabteen marka kadib maxaa dhacay Mareykanku waxay soo qaadeen weerar ay ku soo qaadayaan jasiirad la yiraahdo Qasham halkaasay waxay ku rideen dhowr gantaal waxay yiraahdeen waxaynu duqeynay jasiiradda la yiraahdo Qasham raadaarada kadib markii Iiraan ay xadgudubyo isxigxigay samaysay xadgudubyada isxigxigay maxay yihiin shalay haddaan nala socoteen waxaynu ka hadalnay maraakiib Mareykanku leeyahay in sidan oo kale loogu digay oo ay carareen oo gantaale lagu rido badweynta Hindiya tageen xilliga Mareykanku wax wara kamayso soo saarin laakiin hadda waxay muujinaysaa inay leeyihiin saacadii la soo dhaafay arrimo isxigxigay marka tii shalay iyo tii aroortii saakay maraakiibta ay ku qabteen ayaynu ka jawaabaynay waxayna ka mid tahay nooca difaaca ma isdifaacayeen idinka annagana isdifaacayna noo suga gantaalo iyo drones ayaa waxaa lagu qarqiyay saldhigyada ay ku leeyihiin Bahrain iyo waxaa lagu weeraray Kuwait marka calaamad su'aal badan ayaa jirta nin suxufiya oo reer Bahrain oo la wareysanayo wuxuu leeyahay Iiraan marka la weeraro meelo badan ay weerari jirtay Imaaraadka waxay weerari jirtay Sacuudiga waxay weerari jirtay Qatar Bahrain Kuwait isku sii noo weerari jireen saldhigyadii meesha kama guurin Mareykanka wali waa joogaa
laakiin maalmahan waxaa caado ay ka dhigteen iiraaniyiintay ku leeyihiin inayna beegsadaan baxrayn iyo kuwayt. sacuudiga waa iska daayeen, qatar waa iska daayeen, meelahaas ma aadaan. marka wuxuu ku doodaya doodaa loo qabtay isaga iyo nin kale oo iiraaniya. marka ninkan wuxuu leeyahay sababta annaga keliya saldhigyada maraykanka ku yaala usoo weeraraysaan maxay khaliijka dhan maa weerartaan, alcadaala macnaha maa ka samaysaan. kii iiraaniga marka wuxuu leeyahay laa, waxaas waa betis. haye annagu waxaan weerarnaa meeshii nalaka soo weerarona. sacuudiga nalakama soo weeraro way diideen, qatar nalakama soo weeraro way diideen, imaaraadka saan u galnay og yihiin nalakama soo weeraro maalmahan way diideen. meesha maraykan uu ka naga soo weerarayo waa kuwayt iyo baxrayn. saasaa idiin soo weeraraynaa yidhi, hadday sii socdaanna nagtaadii ka saarayna. marka meeshaan wax laysu reebana male, si fiicana laysu garaaca. marka maraykanku marka waxay leeyihiin iyaguna waray soo saareen weeraradaasu markay dhaceen kadib. haddaba warka maraykanka ay soo saareen, aljaziira waxay leedahay ciidamada maraykanku waxay sheegeen inay soo rideen 4 ka mid ah diyaaradaha daroniska ah. sidoo kalena ay sheegeen inay duqeeyeen raadaaro ay lahaayeen ciidanka iiraan. haddaba ciidanka taliska dhexe maraykanka ee layidhahdo centcom ayaa aroortii saaka sheegay inay soo rideen 4 diyaaradood oo daroon ah oo iiraan ay leedahay kadib markii shaqaaqo ay ka dhacday marinbiyoodka hormus. iiraanna ay isku dayday inay weerarto saldhigyada maraykanka ee baxrayn iyo kuwayt ku yaala. marka waxay leeyihiin gataalaha qaaraa soo ridnay, maaragtay diyaaradaha 4 soo ridnay, halkaasaan marka sidaasay marka wax u dhaceen. haddana markii dambe baashu waa iska degtay. nin walba markuu wax ku tuuro ka kalena waa diyaar waxbuu ku tuuraya. laakiin nin walba tabartiisa wuu og yahay dagaalkan inuu sii weynaado cid rabta male. laakiin iiraan meeshaana u xiran, wax gudbaayo male, leed waxaa rabta soo rid. marka saaki wixii dhacay intaasay aayeen. haddaba marka maxaa dhacay markii weeraradaasoo ay dhaceen kadib? wasiirka arrimaha gudaha ee bakistan ayaa diyaarad soo qaatay, wuxuu ka soo degay tahraan, caasimadda iiraan. tahraan ayuu ka soo degay. u fiirsada caasimadda tahraan. marka muxuu ujeedadiisu marku maxay tahay? aan idin tuso telefishinka aljaziira oo goordhow ka hadlay. waxay leeyihiin ninkan wasiirka arrimaha gudaha wuxuu wadaa risaalo ama fariin uu ka sido bakistan oo uu u sido aayatullaahiga iiraan. wasiirka arrimaha gudaha bakistan muxsin naqawi ninka la yidhaahdo ayaa booqasho ku tegay iiraan maanta, waxaana uu sidaa fariin dowladda bakistan ay usoo dhiibtay oo uu u geynayo aayatullaahiga iiraan. fariin ku socota macnaha dowladda bakistan waxaa usoo dhiibay maraykanka, dowladdii bakistanna wasiirkeedii usoo dhiibtay. wasiirkana tahraanu keenay, wuxuu leeyahay murshidkaa loo dhiiba, aayatullaahiga a iskale fariintan. marka su-aalo badan ay wariyaashu iska weydiiyeen. waxay leeyihiin warqadan maxay noqon kartaa? warqadan maxay noqon kartaa? warqadan marka waxaa leeyahay wax kale maba noqon kartaba. fariin uu dhowaan madaxweynaha maraykanku sheegay ayaa waxaasaa ku qoranay leeyihin. wariyaal badan waxay isku raacsan yihiin oo arrintaa taxliilinayay in fariinta Trump uu usoo diray aayatullaahiga. haddaba fariintu maxay tahay? markaan idin tuso warkii ugu dambeeyey. Trump waxa uu diyaar u yahay inuu la kulmo Khamenei, aayatullaahi Khamenei inuu la kulmo. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuu diyaar u yahay inuu mar la kulmo aayatullaahiga Iiraan Mujtaba Khamenei. arrintaas oo qayb weyn ka qaadan doonto siduu aaminsan yahay in labada dhinac ay gaaraan heshiis lagu soo dhammaynayo xiisadda iyo dhibaatada ka dhex jirta labada dal. marka waxay leeyihin wax kale ma noqon karto. ninka Trump la leeyahay ninkan inaa arkaan rabaa uu leeyahay, ninkan aayatullaahiga la leeyahay aan inaa is aragno waayo. fariinta marka wax kale ma noqon karta leeyahay, inkastoo aan la xaqiijinin, laakiin iyagu waxay ku taxliilinayaan. waxay leeyihin ninka Trump ayaa wuxuu usoo qoray ninkan fariinta, wuxuu leeyahay niyo inaa ku arkaan rabaa, nin imtixaana tahay oo iska kay dhiciye. Trump sidiisaba ninka iska dhiciya gacanuu u taagaa. haddaa iska celisid gacanuu kuu taagaa, haddaa iska celin weysid sida carabta camal waa ku baadaa lacag keenu ku leeyahay maanta dhan.
صوص وموريان عادي واي موريان دقن موريانات كاسو هيستا هدا اسكد عيسو موريان تدي وكاتغاي هدا اسكد عيسو باتو دو ku baaranaay marka hawshaasa marka socota inkastoo wali si sax ah aysan faahfaahin uga bixinin warqada uu waday ninka wasiirka laakiin warbaahinta Iran waxay leeyihiin ninka warqad muhiim u waday ayatullah mujtaba khamenei ninka la leeyahay dhanka kale wararka ugu dambeeyay soo dhacay waxay sheegayaan dawladda Saudi Arabia ayaa si kulul u cambaaraysay weerarka Iran ay ku qaaday Bahrain iyo Kuwait dawladaha kale ee khaliijka iyo golaha iskaashiga iyaguna arinka way cambaarayeen marka ayaga waa iska cambaareynta waa iska caadi midkood hadii jugta laga geliyo kan kale waa iska fiirsanaa waa cambaareeyo leeyahay Iran waxay taagan tahay meeshii xabad leegaga soo rido anna waa ku ridaa waxa rabtaa marka hore iska dhici Mareykan meeshii dhulkayga ha ka weerarin Iran hadiiba laga soo weeraro gantaala iyo drone wada socda ku soo salaamayaa meeshaas wax la isku naxariisana baleelay marka hawshaasu halkaas maraysa dhanka kale wararkii ugu dambeeyay ee dhanka Lubnaan waxa la leeyahay dagaalo qaraar ayaa wali socda nimanka Hezbollah iyo Israa'iil jugta isku hayaan dhanka kale shalay waataan sii deynay war ku saabsan in dawladda Lubnaan madaxweynaheedii uu Iran ku eedeeyay inay madax furasho u haysato Lubnaan oo Hezbollah iyadu ay mar walba waxay rabto u sameynayso ninkii marka waxa u jawaabad isdaba jooga lagu riday wasiirka arrimaha dibadda ee Iran afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran kulligood waxay yiraahdeen madaxweyne cawn Iran waxba ku soo degdegayna nimanka horarka oo dhulkaaga qaadanaya iska dhicin heshiis la galay iyo waadan jugti ku hayeen dadka ay leeynayaan yaa maalin walba diyaaradaha Israa'iil soo kacay Lubnaan duqeynay ma Iraniyiin duqeynayaan Lubnaaniyiin iska dhiciye marka Iran afka ula soo galaysa marka sheekadaas ayaduna halka ka socdo haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa wixii warar ay soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba Hezbollah ayaa war soo saartay Hezbollah waxay leedahay in la beegsado oo Israa'iil ay toos u beegsato ciidamada Lubnaan waa jariimo yiraahdeen waa dambi macnaha ciidanka Israa'iil maanta waxay dileen saraakiil ciidanka Lubnaan ka tirsan ciidanka Lubnaan dawladda Lubnaan ma la dareerayso ciidankeedii meel jooga inta timid ay jugta ka galis Hezbollah miya Hezbollah marro yiraahdeen war dadkan nama kala soocayaan waa aan u midoon shiico sunni kristaan wixii Lubnaan nimankaas ka dhicin dawladda Lubnaan heshiis la galay iyo xuduudkan ciidankeena yahay soo madhi inta diyaaradaheedii yimaadeen maanta nagta ka saaran ciidankii Lubnaan la garaa dawladda Lubnaan ciidankeeda oo xuduudda loo diyaarinay in la geeyo Hezbollah sikada nimankan way baxayaan heshiisa soo galnay heshiis hadda Hezbollah war ay soo saartay waxa leedahay in la beegsado Israa'iil ciidanka Lubnaan oo aan dagaal ku jirin waa jariimo ciidan meel iska jooga in iska duqeys annaga kula dareereen annaga ma soo aad sheekadu halkaas ay maraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta sabdiya haddii alla idmo wixii warar ay soo kordha barnaamijyada dambe ayaanu idin kula socodsiin doonaa like garay oo share garay barnaamijka asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo